shirkan jaraa'id ay ku qabteen faras magaalaha degmada Celafweyn mas'uuliyiintan oo isugu jiray gudoomiyaha gobolka Sanaag gudoomiyaha degmada Celafweyn gudoomiye ku-xigeenka iyo waliba saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Somaliland ee booliska iyo militariga ayaa daaranaa awaamiir ay ku warqabaan ciidamada qaranka Somaliland isla markaasina ku amran yihiin taas oo ku saabsan xaaladda degmada Celafweyn ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Celafweyn Maxamed Jaamac Liibaan Hindi gudoomiyaha degmada Celafweyn Maxamed Aadan Digaale iyo waliba taliyaha ciidanka qaranka ee soo gaaray degmada Celafweyn gaashaan la sare Baashe Fanax oo ku hadlay afka ciidamada qalabka sida waxayna dhamaantood ba yiraahdeen halkan u taaganahay maanta oo aan dadkayaga aanu mas'uulka ka nahay aan maqashiinaynaa awaamiir adag oo sheegaysa in wax laga qaban doono cid kasta oo loo arko inay tahay fidmo wale ama amniga iyo nabadgelyada iyo xasilloonida ku haysta dhibaato waxa kale oo halka looga digayaa oo leeyahay aan ciidanku amar ku qabaan cid allaale iyo cid sidata qori nooc doona ha ahaado mid dhaxal lagu qaato baastoorad ah iyo mid kale oo garabka la sudho iyo mid gaari saaran isla ognahay in lagu haysto deegaamada waxa amar u haystaan inay shaqo ka qabtaan oo aanay cid hebel loo oran karin cid wax yeelaan aan cid la weydiinaya jirin waxa kale laga sheegayaa ciidii wax u geysatay iyaga waxa qaba ciidiisa laga qaadaya qofku haba lagu dabagelayaa guriga haba lagu dabagelayaa lagaga hari maayo askariga qaran ama nooc kasta ha wahaade waxyeeladiisa ee si loo soo istaagay awaamirta u qabsoomi waaya waxay faran yihiin inay waajibkooda qaataan waxa kale shacabkaan leenahay waa aragtaan dhibaatada dhacday ciidinoma iman cid ina soo weerarto sabab ina soo weerartay ma jirto dadkeenii wada yaalay ee deegaanka ahaa ay sahaaba sanadkii sagaalaad iyo kii sideed ina maraya wax laga xishoodaa weey umadina wayna nacday guud ahaan saaka xasiloonida degmadu guud ahaan waa nabadgelyo magaalada gudaheeda iyo miyaduba ma jiraan ciidamo urursan oo beeladyo oo saaka soo fadhiya ilaahay baa mahadda iskale mahadda labaadna waxaan u mahad celinaynaa ciidanka qaranka noocyadiisa ka duwan ama boolis ha noqdo ama military ha noqdo ee sugay amniga degmada sugay waanu u mahad celinaynaa mar labaadka waxaan u sheegaynaa bulshada reer Celafweyn ee aanu mas'uuliyiintoodii nahay in ciidankaasi talaabo sharciga waafaqsan qaadi doono hadday mid tahay iyo hadday magaalo tahayna qof qorisita aan la arki karin hawlgallay ka fulinayaan goob kasta iyo meel kasta oo ka mid ah degmada waxaanu leenahay talaabay qaadayaan ciidanku waxaanu leenahay wixii aad geysataanna idinka qaba wixii ciidanku geystana cid loo raacaya ma jirto hadeerba ha loo dhago nuglaado ciidanka halala shaqeeyo waxaanu faraynaa waayeelka labada dhinac inay la shaqeeyaan ciidanka ay la shaqeeyaan oo u dhaga nuglaadaan oo awaamirta iyo talaabooyinka ciidanku qaadayaan iyagoo ay horgal ay ugu noqdaan oo ay ku hogaamiyaan ayaanu faraynaa labada dhinac waayeelkooda ta kale waxaan u sheegaynaa shacabka magaalada degan in ay magaaladu xasiloon tahay oo ay ganacsigoodii maanta furan karaan oo ay shaqaysan karaan ayaan u sheegaynaa sidoo kale meelihii dhufaysyada la isaga dhigtay waa la baneeyay saaka waxa weeyaan magaaladu way furan tahay ma jirto saaka meel aanu cabsi ka dareemayno ama aanu khalkhal nabadgelyo darro aanu ku ognay haddaan ciidanka qaranka nahay halkan waxaanu nimi amni gurmad oo ka dhacday degmada Celafweyn oo aan anagu islahayn inta Celafweyn maanta ayaa inta ka dhacaan la isku dilo ayaa u gurmad doontaan idinkoo yool kale leh ciidanka qaranku lahaa yool kale way dhacday ciidanka qaranku wuxuu ku amran yahay oo imika aan ku amraynaa oo ay haystaan jeebada ku sitaan oo ciidanka ka xidhnay qofkii qorisita inay ka qaadaan hadduu dhiibi waayo inay ku dilaan amarka waanu haysanaa waa ku shaqaynaynaa waa lagu dhaqmayaa idina waxaan iska codsanaa dadweynuhu inay nala shaqeeyaan ilaahay ma naguma keenee haweenku inuu nala shaqeeyo in raggu nala shaqeeyo in dhalinyaradu nala shaqeyso in waayeelku nala shaqeeyo in garbeedku nala shaqeeyo tiina ku jirta dhammaantiin bay ku jirtaa hana nala shaqeeyo ciidanka la isbarbar taago taana shacabkaan leeyahay ta kale waxaan soo jeedinayaa magaalada Celafweyn gudaheeda degmada inta taaganahay waa aragtaan oo magaalada dagaal ka dhacay dadkii magaalada lahaa waxaan leenahay rag iyo dumarba qof walba gurigaaga adigoo xoratag nabadgelyada annaga ka mas'uula qof walba gurigaaga adigoo xora
oo aan cidda ka baqayn ilaahay mooyaane guriga ku soo noqo haddaad meherada haystay furo haddii aad carruur wax baranaysa wax ku barato haddaad shaqaynaysa qabso qof kasta waxaynu halkiisii ku soo noqday meheradiisi dhib kale anagu ma wadna nabadda ka shaqaynaa nabadda nagala shaqeeya dadweynaha waxaan ku codsanay nala shaqeeyaan waxa kale oo fariin u diraynaa uqaashi labada dhinac laakiin waxaan u diraynaa in baaq odayaashoodu ay yimaadaan oo nala shaqeeyaan odayaasha uqaashi labada dhinac inay nala shaqeeyaan oo ay yimaadaan oo iska berber taagaan oo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse Istaber waxaana uu awdkeeyay awaamiirtaasi isagoo oo sheegay aanu ku kalsoonahay awoodda ciidanka qaranka hadday yihiin booliiska iyo hadday yihiin militariga oo gurmad noogu yimi iyagoo xaalad adag oo culus ku jira waanu mahadnaqaynaa waana soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka ehelka ah ee caqliga u saaxiibka ah inay arrintaas soo afjarideeda ka qayb qaataan taa dadka inta ka baxsan degmada Ceelafweyn baan odhanaynaa degmada Ceelafweyn dadka ku nool waxaan u sheegaynaa ku wargelinaynaa carabka ku adkaynaynaa in Allah talaabo laga qaadi doono cid allaale cidii lagu arko gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse Istaber waxaana uu awdkeeyay awaamiirtaasi isagoo oo sheegay qoriga lagu qaato garabka waxa ku xiga mid gawaadhi la saarto noocuu u yahayba qofka lagu arko ciidanku waxay amar u haystaan inay talaabada sharciga ku habboon ka qaadaan waxaanu u sheegaynaa oo ummadda Soomaaliland marag uga dhigaynaa golayaasha qaranka kala duwan marag uga dhigaynaa inaan cid allaale cid loo raacayaa jirin waxa la caadaystay halkan waxyeelaynta ciidanka qaranka waxa la caadaystay in maalin walba fadqalala iyo fawdo loola yimaado waxa la caadaystay in rasaas nool lala dhaco ciidanka qaranka iyagoo aan dan aan amniga inay sugaan mooyaane wax kala hayn halkan qaarkoodna doolid ugu yimi oo goobahoodii iyo degmadoodii uga soo duulay inay halkan nabad ka sugaan waxaanu leenahay cid walba arrintaa ku kacda waxa u xidhxidhmaya ehelkooda waayeelkooda cuqaashooda dhammaan intii ay khusayso baa u xidhxidhmaysa tallaabo qalloocan ninkii ku eega ciidanka mid aan ku daraya waxa weeye iska daa mid tallaabo qalloocan ku eegaya ciidanku waxay amar u haystaan ka qori haysta inay tallaabo sharci ka qaadaan dadkan liidinta caadaystay laamiga inay gaadiidka maraya ku rabshadeeyaan oo ku fadqalaleeyaan ciidanka qaranku waxay amar u haystaan iyagana inay tallaabada sharciga ugu habboon ka qaadaan taasa amar u haysataan waa caatul dariiqnimo weeye waa caatul dariiqnimo diinta islaamka iyo mid kale toona fasixi mayso in wadooyinka iyo maxaan ku raada meelaha muhiimka ah ee la isu marayo la wax yeeleeyo la taabto taana waxaan doonayaa waxaan damaanad qaadaynaa ammaanka qof walba oo ku sugan degmada Ceelafweyn waxaad xor u tahay inaad ka ganacsato meheradaadii furato ku shaqaysato argagax la'aan aad ku noolaato maxamed masuul wararka Cable Ceelafweyn